بسم الله الرحمن الرحيم كسولو هذا شبكة sologroups.com laga barto cilmiga ICT-ga iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga magacaygu waa Cabdinaan Ismaaciil emailka aad nagala soo xiriiri kartaan waa info@sologroups.com waa English language casharadii imtixaanaha ahaa ee ku soo biiray shabakada sologroups.com isla markaana laga barto ICT ama information communication technology waxaanu baran doonaa casharkan pronunciation marka luqadda afka Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa ku dhawaaqida luqad kasta waxay leedahay qaab lagu dhawaaqo marka pronunciation-ka meesha ka imaana p ayuu ka bilowdaa ma ahan b af Soomaali ma waa p pronunciation meesha ayuu ka bilowdaa marka waxaanu baran doonaa qaabka pronunciation-ka loo sameeyo marka waa listen dhageyso and define kadibna waa in aad barataa oo aad ku celisaa wixii maaragtay ka baratay qaabka shabakada ay u barto luqadda Ingiriiska ugu horeyn qofkii doonaya inuu la soo xiriiro mar walba info@sologroups.com ayuu nagala soo xiriiri karaa wixii macluumaad ah ee ku saabsan shabakada iyo qaabka loo barto tabcan buugaag aad u fara badan oo English ah oo kuwa la dhageysta ah PDF ah ayaa ku jira shabakada oo dhanka Ingiriiska ugu horeyn waxaan tegayaa shabakada sologroups.com haddii aadan ka diiwaangashaneen fadlan halkan riix memberska si aad ogaatid qaabka la diiwaangeliyo waxaan haystaa username iyo password ayaan haystaa ayaan isticmaalayaa si aan shabakada u galo kadibna aan u eego dhanka iyo cashirkan English language-kan u eego enter ayaan leeyahay kadib markii aan galo shabakada waxaan tegayaa English ayaan tegayaa halkan waxaan tegayaa dhanka tutorialka ayaan tegayaa waxaad ku aragtaan in uu ku jiro casharka pronunciation halkan uu ku jiro ama ku dhawaaqida marka kan ayaan riixayaa waxa ii soo baxayaa dhankan iyo dhanka laga barto pronunciation ayaa san igu soo baxaya marka waad aragtaa welcome to pronunciation course-adan ku baran doono marka course-adan waxay leedahay afar part each unit ayay leedahay marka unit 1 D to D D to D Unit 2, P, D, Unit 3, P, B, Unit 4, V, B, Unit 5, S, S, H. Marka ereyada isu eg iyo sida loogu dhawaaqo ayaan ku baran doonaa aad ayuu muhiim u yahay waa in aad ku celisaa isla markaana aad dhegeysataa marka kan waxaan ku daynay codkii ayaan ku daynay si ardayda ay u fahmaan isla markaana ay u dhegeysan karaan wixii ay sameyn lahaayeen ugu horeyn waxaad tegeysaa halkan adoo jooga part 1ka part 1 ayaad riixaysaa waxay leeyahay sugaysaa kan ayaa kuu soo baxay wuxuu ku leeyahay click start to listen halkan riix si aad u dhageysatid the word which you hear is shown in red ereyga aad maqlaysid waxa uu ku soo baxayaa calaamadda casaanka ah ama redka ah ayuu ku soo baxayaa marka si fiican u dhageysa ayuu leeyahay marka haddii aan riixo waxaan maqlayaa ugu horeyn oo ii soo baxaya team waa magac beat card drain dim town beat bed cart door bed down tour train tim beat marka waan isaajinayaa waxaan maqlay oo adigana ardaygaad maqlaysaa qaabka ereyadan reedka ama calaamadda casaan ku soo baxay loogu dhawaaqo xilliga ku dhawaaqidu ay dhammaato waxaa lagaa doonayaa in aad aadid partigan 2ga halkan aadid isla kii ayaa kuu soo baxaya laakiin iminka waa ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay wuxuu ku leeyahay when you click play haddii aad riixdid play halkana you will hear a word waxaad maqlaysaa erey ayaad maqlaysaa click on word you hear ereygaad maqashid waa inaad riixdaa to hear another word click play again marka waxaa muhiima ereyga inaad fahantay si lagu ogaado waa in aad riixdaa
kan aad maqashay tusaale ahaan haddii aan idhahdo play down ayaa maqlay maxaa soo baxaya correct ayuu leeyahay ama sax ayaad samaysay kan labaad card ayuu yiri correct Tim ayuu yiri kan saddexaad correct cart ayuu yiri town ayuu yiri marka ereyada ayaa isu eg saa ku aragtaan town iyo down xilliga lagu dhawaaqayo ama pronunciationka la sameynayo isku si ayay u dhawaaqaan marka waxaa muhiima in aad saxdid play wuxuu ku leeyahay labadan iminka aaday isugu yihiin beat haddii aan idhaahdo wrong kan ayaa sax ah correct ah waa kan sax dim kan ayuu noqonayaa marka erayadanna waa in aan fahanaa macnaha ay ku socdaan card waan naqaanaa si fiican ayaan u naqaanaa dim waxaa laga wadaa arag darnaan ama nal daciifa nalka hadduu daciif yahay waa dim ayuu ka imaanayaa kan waa magac kan waa cart waa gaari gacan ama kan dameerka la jiido oo kale ayuu noqon karaa cart ayuu noqon karaa kani waa albaab kani wuxuu noqon karaa markaa iridaha ama ganjeel ayuu noqon karaa toorkan drainkan waa daadi ama drainage ayuu ka imaadaa waa daadinta waxa laga daadiyo ama laga bixiyo marka train waa trainka la raaco kan waa sariirta kanna bedkan marka luqadda ingiriiska saa hore kuu sheegay erey walba micnihiisa waxay ku xiran tahay meesha loo isticmaalay marka micno aad u fara badan ayuu yeelan karaa tusaale ahaan kan wuxuu noqon karaa bed haddii la yidhaahdo aqamaarka ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa xaywaan ayuu noqon karaa laakiin waxyaabo aad u fara badan ayuu isla markaa noqon karaa marka ma noqon karo keliya laguma oran karo xitaa waxaa loo isticmaalaa I bet he's not coming today waxaa hubaal ah maanta inuusan imaanin marka ingiriisku wuxuu ku xiran tahay meesha laga isticmaalay ay ku xiran tahay marka halkan waxaa yaala beat oo sidaan ah waa kuusha atimaha lagu tidcado ayaa la yidhahdaa beat kan waxaa la yidhahdaa beat kan waa d ayaa ugu dambaysa kanna t ayaa ugu dambaysa marka kan waxaa la yidhahdaa ku garaacday beatka codka la maqloo kale ku garaacday ama la garaaco kale ayuu noqonayaa marka down waa naqaanaa waa hoos ama down aaday isla markaana waxaa xusuus mudan wuxuu raacayaa erey walba oo marka muhiimku ayuu raacaya luqadda ingiriiska waa a town ama magaalo yar oo aan city ahayn ayaa la yidhaahdaa marka sidan ayuu u socdaa qaabkan waa fahmi karnaa marka haddii aan ka gudbo waxaan tegayaa part 3 ayaan tegayaa part 3 waa t or d ending marka wuxuu ku leeyahay listen si fiican u dhegeyso to whether these words end with a t or d si fiican u dhegeyso isla markaana waa inaad ogaataa erayadan in ay ku dhammaanayaan ending ereyga t or d oo codka aan maqalno cod ayaan maqlayna click the sound you hear marka halkan waxaa yaala walked wanted marka haddii aan halkan riixo wanted waa ujeedaa correct ayuu noqday kan marka wanted ereyga sidaa ayay ugu dhawaaqaysaa marka wuxuu ku leeyahay hear the difference walked and wanted ayuu leeyahay marka adiga ardayga waad maqlaysaa halkan ayaad riixaysaa walked and wanted qaabka ay u kala yeeraan next ayaad leedahay iminka wuxuu ku leeyahay t o d endingan iyag stopped iyo sailed dhegayso stopped ayuu ku leeyahay marka haddii aan yidhahdo d maxaa dhacaya wrong tabcan waa kan ayaa sax ah stopped uu ku leeyahay inkastoo kan uu ku egyahay odhan kan ayuu ku egyahay kan ma ahan kan wuxuu noqonayaa assailed stopped waa kan assailed haddii aan yidhahdo kan waa wrong tabcan sailed kan ayuu ku egyahay marka haddii aan yidhahdo next waxaa soo baxaya t o d ending kaasoo ah brushed and boiled marka haddii aan dhegaysto brushed correct haddii aan dhegaysto mar labaad brushed correct difference aad dhegaysto marka boiled brushed ayuu leeyahay marka next ayaan leeyahay iminka wuxuu leeyahay mix and mended haddii aan dhegaysto mended haddii aan idhahdo d correct hear the difference mix and mended sidan ayuu kala baxayaa la bedelay iyo isku qasan ayuu noqonaya marka luqadda ingiriiska marka waxaanu raacinaynaa erey walba sidan ayaan u raacinaynaa
next haddii aan idhaahdo spanked and smooth haddii aan idhahdo t wrong طبعا wuxuu u baahan yahay diiga iyo saxa here haddii aan idhahdo spanked smooth san ayuu soconaya marka sidan ayuu soconaya brush boiled gebiyahaan san u soconaya marka kan 3 haddii aan ka tago waxaan tegayaa 4 ayaan tegayaa marka 4 waa ka duwan wuxuu ku leeyahay listen dhegayso ana click kadibna riix the phrase you hear waxa aad maqashay phraseka aad maqashay ama ereyga aad maqashay markaad wad riixaysa tusaale ahaan haddii aan riixo halkan kan haddii aan riixo correct maxaan ku ogaanayaa halkan ayaan riixaya ugu horreyn is on my card ayuu leeyahay kan next day haddii aan idhaahdo kan riix I have made a bet ayuu leeyahay marka bet ma ahan kan haddii aan riixo correct ayuu noqonaya next day aan idhaahdo mar labaad riix is on my card haddii aan idhaahdo kan wrong waa card kan ayaa saxa marka waxaad maqlaysaa phraseskii ama ereygii lagu dhawaqay ee halkan yaalla mar labaad haddii kan aad dhamaysid unitka labaad ayaa tegaysaa markii aad tagtid unitkan waxaa kuu soo baxaya isla sidii kan ayaad riixaysaa marka ereyadii halkan ayay sidaan kugu yaalaan pen tusaale ahaan waa qalinkii peer ereygan waa muhiim dadka isku midka ah nooc walba sida da'dooda waxbarashadooda waxaa la yidhahdaa my peers ayaa la yidhahdaa macno kalena wuu leeyahay tabcan waxaa kaloo halkan ku jira aan aragnaa pankan waa digsi furan digsiga ukunta iyo waxyaalaha quraacda lagu sameeya ayaa la yidhaahdaa appeal oo ah diirka appeal banana for me qofka hadduu yidhaahdo waxaad tabcan ma dhihi kartid open banana for me moose efor ma dhihi kartid waa peeling waa sida basasha oo kale la peelgalayo peel onion ayaa la leeyahay ama basasha waxaa la leeyahay kafuj ayaa la leeyahay qolofka marka waa muhiim a couple kani waa lamaane ama lamaanihii ama lamaan dadka isqaba dadka maaragtay lamaanaha ayaa la yidhahdaa couple marka a label ayaa la yidhahdaa kan kana waa muhiim sababtoo ah inta badan waxaa lagu qaldaa ereyo kale ayaa lagu qaldaa wejiga hore ee jaakadda la laabo tusaale ahaan haddii aad xiran tahay suit waxaa jira inta hore in la laabo laab laga dhigo kaas ayaa la yidhahdaa label ayaa la yidhahdaa marka waxaa kaloo ku jira halkan saddalkan waa jimicsi qalloocan isqalqalloocinta ama xitaa wuxuu noqon karaa maska isqalqalloociya marka saa hore idinkugu sheegay mar walba waxaa muhiim ah in luqadda ingiriiska meesha ku habboon ee gashay ayaa muhiim ah marka den kan wuxuu ka imaanayaa meel lagu noolaan karo xayawaanka uu ku noolaan karo sida lions den ayaa la yidhahdaa meelaha lagu xaroodo waa den waxaa la yidhahdaa drugs den oo kale meel daroogada lagu iibiyo kale ereyadaas ayaa loo isticmaalaa marka deer kani waa naqaana qof walba waa yaqaanaa deer wuxuu ka imaanayaa gacali ama mudane hadba sidii loo aqriyo marka kan waa dan waa ranking ayaa la yidhaahdaa waxaa isticmaalaa jabaniiska ayaa isticmaala waa qaab oo karatega loo isticmaalo magacna wuu noqon karaa kan deal ereygan la yidhaahdo waa diilka la sameeyey ama heshiiska la galay ayaa la yidhahdaa we have a deal marka aad ka maqashid qofka ingiriiska waxaanu samaynay dealkaas ayaan samaynay a cuddle waxaa la yidhaahdaa qaabka saartid ama hab isasiinta ama lamaanaha markii isku dhegaan ayaa la yidhaahdaa waxay yidhahdaan give me a cuddle ama xoogaa dee shafka kaalay uu qabo ayay noqonaysaa marka haddii af soomaaligeena saxda shafka la isku qabta la yidhahdaa cuddleka ayaa la yidhaahdaa inta badan lamaanaha ayaa sameeya waxaa kaloo halkan yaalla waan ku aragnaa alladl ayaa halkan yaalla oo iyadana waxay leedahay micno gooni ah oo ka bedelan ayay leedahay marka waxaa loo isticmaalaa malqacdaha waaweyn ayaa loo isticmaalaa tusaale ahaan xilliga suubka ama maraqa la samaynayo waxaa loo isticmaalaa malqacad weyn ayaa loo isticmaalaa taas ayaa lada la yidhaahdaa marka waxaa kaloo halkan yaalla supple ayaa halkan saan u yaalla isagana waxaa loo isticmaalaa different things ayaa loo isticmaalaa sadalkan halkan yaalla supple sadal marka waxaa la doonayaa oo mar walba la iska ilaalinayaa in eradan isu ekaadaan tusaale ahaan kan macna ayuu leeyahay waa jimicsigii qalloocsan xayawaanaadka yaryar isticmaali karaan isqalloocin kanna waxaa loo isticmaalaa koreya ayaa la yidhahdaa af soomaali
waxaa loo isticmaalaa sida fardaha ayaa loo isticmaalaa fardaha xilliga farda fuulka la sameynayo farasa sideeda iyadoo ah laguma fadhiisan karo saa awgeed ayaa waxaa la sameynayaa in sabalkan la isticmaalo marka macnaha ereyada waa kan marka haddii aad doontid isla sida ayaa raaxisay sar ayaad leedahay waxaad arkaysaa kan cas meeshu ka soo baxo dear a label pen ereyga piece aan u dhawaaq dhegeysto peel pear a supple saan ayuu soconaya marka markii aad fahantid kan isla sidii ayaa tegaysaa halkan wuxuu ku leeyahay iminka when you click the play word here click the word you hear to hear another word click play again isla sidii ayaa samaynaysaa play ayaa leedahay isla markii waxaa kuu soo baxaya oo halkan ka soo baxaya ereygii aad doonaysay inaad ku dhawaaqdid hal mar ayaad play leedahay waa sugaysaa marka kuu soo baxo waxaad dhegaysanaysaa ereygii iyo siduu u socday waad ku celinaysaa markaa kaasoo ah halkan playde hadduu couple kuu saaro waad riixaysaa kan marka waxaa la iska ilaalinaya ereyada siday isugu yihiin pen iyo dan pear and dear pan and dan si ayay isugu yihiin marka isla sidii principlekii unit 1 ayuu u shaqeeyaa kadibna waxaad tegaysaa 3 ayaa tegaysaa halkan waxaa yaala idm wuxuu leeyahay halkan riix waxaa kuu soo baxaya ereyga marka wuxuu leeyahay help haddii aan idhaahdo b ayuu ku egyahay a correct hear the difference waxaan maqlaa help iyo held markay caawi ama la haysto held marka ereygan micno badan ayuu yeelan karaa marka hays oran kaliya hal micno ayuu leeyahay ingiriiska mar walba waa inaan ku celceliyaa micnooyin kala duwan ayuu leeyahay kadibna next ayaan leeyahay waxaa ii soo baxaya read ama reap halkan haddii aan riixo haddii aan idhaahdo reap muxuu noqonayaa correct ayuu noqonayaa halkan ka dhegayso saan ayuu soo baxayaa wixii aadashid you create what you reap taas ayuu noqonayaa next ayaan leeyahay a rank ayaa saanu yaala marka waxaan ku darayaa halkan brank ama drunk ayuu noqonayaa ama khamraysan ama sakhraan ah ayuu noqonayaa kan ereygan marka drunk haddii aad maqashid wuxuu noqonayaa khamraysan drink ayuu ka imaaday iyo drunk ereygiisaan ayuu noqonayaa next ayaan leeyahay isla meesha ayuu kusoo laabanaya marka kan ugu dambeeya haddii aan tago wuxuu siinayaa halkan listen and click the phrase ereygaad maqashid halkan kaga bilaab ayuu ku leeyahay he's holding a big carb he's holding a big card ereyga siduu isugu yahay bal ee carb and card haddii aan halkan aan riixo aan israado dhegayso wuxuu ii soo saarayaa ereyga ah kii aad doontid oo aad tiraahdo haddii aad tiraahdo kan waa wrong kan waa right kan ayaa sax ah next ayaad leedahay look into the park look into the dark haddii halkan riixo ku celi kan haddii aan riixo waa correct next de saan ayuu ku dhammaanaya marka unit kale saan ayaa u tegaysaa waxaad raacaysaa isla sidii ayaa raacaysaa kan ayaan tegaynaa part 1 ayaa tegaysaa marka waxa muhiim ah ereyada halkan ku qoran micno ayay leeyihiin micnahooda waa in aan fahanaa xilliga aan ku jirno si haddii mar kale uu kugu soo laabto aad ogaan kartid tusaale ahaan kan ayaanu ka bilaabaynaa pack wuxuu noqonayaa dhar qabte ama dharka lagu waro ayuu qabtaa waxaa xusuus mudan in dharka xilliga la waro dabaysha ay jirto banaanka haddii la tago waxaa lagu xiraa erey soomaaliga lagu yidhahdo waa taqaanaan dharkan lagu qabto ah dhar qabadka ayaa waxaa lahahdaa peg ayaa la yidhaahdaa marka micno kalena wuu yeelan karaa marka keliya kaa ma ahan waana magac waxaa ku xiga beg ayaa ku xiga waa tuugsiga micnaha kalena wuu yeelan karaa begging I'm begging you I beg your pardon wax walba noqon karaa post waa naqaanaa waa boostada kan waa boast ayaa la yidhahdaa suu u kala yidhi kan waa post p ayaan leeyahay kanna boast ayaan leeyahay marka ereygan macnihiisu waa afaanka shakhsiga kalsoonida badan qaba wax walbana ku faana macno kalena wuu yeelan karaa marka wuxuu leeyahay he's boasting
wuu ku faanaa mar walba wuxuu dhahaa anigu waxaan ahay sidan ayaan ahay yuu leeyahay Pete kan wuxuu noqon karaa magac ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa erey kale ayuu noqon karaa laakiin kan noun ayuu noqday hadda kan marka wuxuu Pete ku garaacday horaan usoo aragnay waa dhanka musiga macna kalena wuu yeelan karaa kan waa muhiimkaas in la ogaado kan waa pair labada sida pair of socks labo sigsaan ama laba cayaaryahan ayuu noqon karaa pair of players ayuu noqon karaa marka a bear kan wuxuu noqon karaa magac xayawaan ka ku nool wadamada qabowga ku nool ayuu noqon karaa kan waxa kale loo isticmaali karaa a different content ama nooc kale loo isticmaali karaa tusaale ahaan erey waxaa jira British English oo la yiraahdo can you bear with me iyaresigo kale ayuu noqon karaa marka ereyadaas macno kala duwan ay leeyihiin marka a plume kan isna macno fara badan ayuu leeyahay waxa male specific word isaga loo isticmaalo male laakiin waxa loo isticmaalo waxyaalo aad u fara badan waanu gaari doonaa a bloom magacyada ubaxyada qaarkood uu noqon karaa macno kalena wuu yeelan karaa kana waa muhiim isagana part macno badan ayuu yeelan karaa ama part of the group spare parts wuu soo geli karaa marka hadba meeshii ku habboon ayaa la gelin karaa part magac ama macno kale ayuu yeelan karaa kan marka uu oran Bart Simpson au eegin a cap wuxuu noqon karaa koofiyad madax ama macno kale isna waa yeelan karaa waxyaalo badan ayaa lagu jeri karaa hadba meeshii la geliyay ku xiran tahay cap wuxuu noqon karaa magac iyo macno kale taxi uu noqon karaa wuxuu noqon karaa isla sidii halkan tag kii ayaa ku soo baxaya halkan ayaad riixaysaa ereygii meeshii uu tago ayaad ka soo qaadaysaa halkan uu ka soo galo kan saddexaad tag markii aad tagtid iminka waxaad doonaysaa inaad halkan aad riixdid waxaa kuu soo baxaya codka ayaa kuu soo baxaya p o p haddii aad tidhaahdid beer aad tidhaahdid wrong waa peer saan ayuu soo baxaya next day waxaa kuu soo baxaya p o p sound haddii halkan aan riixo codkaan dhegaysto waxaa ii soo baxaya haddii aan idhaahdo b wrong wuxuu noqonayaa pin ayuu noqonayaa marka pinka yar oo cirbadoo kale ayuu noqonayaa next haddii aan idhaahdo kan saan ayuu ahaanaya ugu dambays kan ayaan tegayaa wuxuu leeyahay look at the pair over there labadaas xagga joogta eeg ayuu ku leeyahay marka haddii kan aan idhaahdo waa correct kaas ayaa sax u ah next ayaan leeyahay shall we take a cab kan haddii aan idhaahdo correct saxa marka cab ama taxi ma qaadana qaabkaas ayuu u shaqeeya marka unitka kale sidoo kale ayuu u shaqeeya waa same principle ayuu u shaqeeya laakiin waxaa loo baahan yahay haddii aad tahay ardayga in aad dhegaysta ayaa loo baahan yahay sababtoo ah haddii kale ma fahmi kartid wax laga hadlayo marka part 1 ayaan eegaynaa waxaa ku yaala waxyaalo kala duwan ayaa ku yaala marka erayadan waa inaan fahnaa vol ayaa la yidhaahdaa vol waa xayawaan yar oo dooliga u eg oo rodent animal ayaa la yidhaahdaa waa xayawaan inta badan aan laga garan dooliga ayuu noqonayaa baaquli bowlkan wuxuu noqonayaa baaquli voodka waa cod ama codayn macno kalena wuu yeelan karaa tabcan waa doonta kan a saver baado ama ruuxa lacagta kaydsada ayuu noqon karaa macno kalena wuu yeelan karaa kan sabr waa seefaha qalloocan ayaa la yidhaahdaa sabr oo carabaha laga isticmaalo ayaa la yidhaahdaa a curve ayaa la yidhahdaa kan xariiqin qalloocan ama wax qallooc ah ama curve wadada waa curve dhinacya u leexata ayaa laga wadaa a curb waxa lagu wada u dhow waa marshabyadiga ereyga af Soomaali lagu yiraahdo oo laamiga agtiisa ah ayaa la yiraahdaa a curb ayaa la yiraahdaa inta u dhaxaysa meesha dadka ku socdaan iyo meesha gawaarida inta meesha dadka ku socdaan waa ka yara dheertahay saa awgeed waxa la yiraahdaa curb ayaa la yiraahdaa marka a vanish agtiina ah lumay la la'yahay iyo kuwa kale aad u fara badan kana waa banish laga saaray ama laga dhex saaray iyo macno kale erayadan aad ay isugu dhow yihiin he vanished he banished marka macno kala duwan oo yeelan karaan a veil waa xijaabka la xirto oo macno kalena yeelan karaa bell kani waa magac waxa kaloo loo isticmaali karaa geedka waraaqaha laga sameeyo iyo kuwa kale oo fara badan laakiin waa noon magac very add macno kala duwan oo fara badan uu leeyahay iyo ugu dambeyntii halkan waxaa yaala berry waana magac dhir ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa waxyaalo kala duwan marka kan ayaad u imaanaysaa isla sidii waa isla midkii sidii ayaad u raacaysaa halkan ayaad riixaysaa
waadna fahmaysaa qaabka uu shaqaynayo. Part 3 halkan ay imaanaysaa, halkan ayaad riixaysaa, marka waxaad leedahay halkan haddii aan idhaahdo v aan dhexda ka geliyo waa correct, a cover. Next haddii aan idhaahdo b but hear the difference waa v vat. Next haddii aan idhaahdo sidii ayuu soo raacaya. ugu dambeyntii kan ayaan tegayaa, wuxuu leeyahay there are 20 volts in it iyo there are 20 volts in it. kan haddii aan riixo correct, kan ayaa saxa. Next ayaan leeyahay I've never seen such a big saver. weli ma arkin shakhsi sidan wax u ekaydsada. haddii aan kanaan riixo correct isagaa saxa ah. ugu dambeyntii unit 5 ayaa tegaysaa, isla sidii ayaad u raacaysaa unit 5. waxaan tegayaa part 1 ayaan tegayaa, marka waxaan ka bilaabayaa sew ayaan ka bilaabayaa tolo ama tol ama la tolayo, tole qofka wax tola, a sewing machine oo kale ayuu ka yimid sew, tol ama tolaaye ama tole. show tusida waxaa la tuso iyo magacyo kale, macno kale ayuu leeyahay. las a gabar yar, waa gabdhaha yar. He's going out with a young lass, waxaa laga isticmaalaa waddanka ingiriiska las. lash yeyna ereygan waxaa la yidhahdaa dibka xayawaanka. ul usha faraska iyo waxyaabaha dadka lagu garaaco kale oo laga sameeyo dibka xayawaanka laga sameeyo. c waa egg ama waxyaabo kale ayuu noqon karaa, waxyaala aad u fara badan. she iyada waa tilmaanta dhediga ayaa la yidhahdaa. sayd yiri tiri ama waxyaabo kaloo aad u fara badan ayaa loo isticmaali karaa. kan shed waa daadiyaanka. daadiyaanka af soomaaliya ayuu yidhahdaa tabcan waa guryaha yar ee gaardanka, guriga gadaashiisa laga dhiso, meelaha waxyaalaha qalabka gaardanka lagu keyday ayaa la yidhahdaa shed ayaa la yidhahdaa. mars tabcan waa dhulka afraad ee qoraxda, ama magacyo badan ayuu noqon karaa. magac chocolate xataa uu noqon karaa la cuno, marka aad ayuu fara badan yahay. mars waa dhul dhiiqo, dhulkan dhiiqada leh, dhulka dhoobeyd oo kale oo Soomaaliya waxa la yidhahdaa waa marshland ayaa la yidhahdaa. mar walba waa qoyan yahay dhulkaas, waa dhul biyood. a sower waa beer abuuraha, shakhsiga beerta masagada ama geleyda waxyaabaha kale muuska ama abuura ayaa la yidhaahdaa. xilliga uu ku tuurayo waxyaala lagu abuura ayaa la yidhahdaa showerka ayaa la yidhahdaa. shower waa meelaha lagu qubaysto, waa showerka caadiga ah, waan naqaanaa. safe waa kayd iyo waxyaabo kale aad u fara badan ayuu sameeya. ugu dambeyntii shave halkan waxaa yaallaa xiirashada, xiiro timaha la xiirta ayuu noqonayaa. marka ereyada waa sidaas. inta kale kan ayaan raacinaa, kan ayaad isticmaalaysaa xilliga aad tijaabada samaynaysid. kadib halkan ayaad imaanaysaa, ereygii halkan ayaad riixaysaa. gas ayay leedahay gabadha. hear the difference iyo gash. gas iyo gash ayay leedahay. gash waa haddii madax ay wax kaaga dhacaan oo kale ama dhaawac ku gaaro, gash yar ayaa soo garaya leeyahay ereygaas. next ayaan leeyahay, marka haddii aan dhegeysto sack, correct. hear the difference shack iyo sack. sack marka ereygan waxyaalo badan ayuu noqon karaa, xitaa shaqadoo laga ereygu noqon karaa. sacked waa la dhihi karaa. shackna waxaa la dhihi karaa guri aqal Soomaaliya oo kale ah, ama guri oo maaragtay la isku xirxiray oo guri sidaa loo dhisaanayn ayaa u noqon karaa. marka next day aan yidhaahdo meesha ku soo laabanaya part 4ka wuxuu noqonayaa you need to save more often. you need to save more often waa inaad marar badan aad maaragtay wax keydisaa. haddii aad dhegeysatid wuxuu soo baxaya you need to save more often, wrong, kan ayaa saxa, correct ah. marka qaabkaas ayuu u shaqeeya. marka waxaanu baranay pronunciationka qaabka, marka kuwa badan way soo socdaan oo qaabkan oo kale ah. marka pronunciationka waa muhiim haddii aad baranaysid luqadda ingiriiska, sababto waxaa la doonayaa in ereyga sidii loogu talagalay aad ku dhawaaqdid. marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh waan ku baranay pronunciationka ama ku dhawaaqidda oo ahaa lesson and define. halkan ayaan kaga baxaynaa, waa qaybaha English language ee sologroups.com. wixii macluumaada mar walba la soo xiriira info@sologroups.com. anigoo ah macalin cabdinaasir, intaa wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.